anigu waxaan ahaa dadkii xubnaha jabhadda ahaa markaa waan fakaday nabad baan galay dadka iyagii iyo dumarkii anigu aan qabay baa la soo wada qabtay runtii waxaan aad u marka haweenkaygii baa la soo qaaday mid baa markaa uur lahayd waa la dilay ilmihii baa ka soo duulay markaa anigii waa laga daba yimid waa la soo qabtay horta dheerkii aan ka dhashay oo dhan baa soo wada duulay warami karo markaa wiilashii dadkii aan wada lahayn ani daraadday baa la soo wada yeel duubay weliha ay lahaayeenna waa laga wada duubay markaa anigii waa la soo qabtay nasi wanaag iyagii waa la iska sii daayay kolkii anigii la helay nasi wanaag markaa iyagii oon waxba la noolayn aad iyo aadna u dhibaatooday lagana sheekin karinoo eega dumarkii ay dhalmada kaga tageen xataa markaa waa la soo qabtay qabalayga libigaa laygu xelay muddo waa laygu jirdilayey aad iyo aad waa laygu jirdilayey xilligaa in waxaa haystay la yidhaahdo shahalqa dhoob iyo wax noocaasaa iigu iman jiray markaa ku shariifuu leeyahay iyo qolyo marhajaayina way ka hooseeyeen haddana adugu qabalayo fara badan baa la imariyey gasoole dhicin oo kale marka aniga jeelkan dhibka igu badan ee isoo gaaray wuxuu iga soo gaarayba qabalayada iyo meelaha tuulooyinka laga soo qabay aad laygu celceliyey ilaa dadka iyagaba runtii aniga oo fursadan ka faa'iidaysanaya waxaan jeclaan lahaa ogaadeen yani eega aan sheekadiisu way adigu si fiican baa dadku u wada fahmay laakiin dad waxaa jira aan la gaadhin saxaafadduna ayna gaadhin xorriyadda qodobkuna uusan aad weli u gaadhin oo sida qabalayga dhabiile lebiga oo kale mindhicir oo kale haddii aad tagtaan kolley waxaan jecelahay inay tagto qaybtan saxaafaddu si dadkaa loo arko yacni baabaca ku dhacay iyo sida ay yihiin waxyaabaha ka muuqda ee jirkooda aan jeelkanba ka dhicin sidaan anigu aad u malayn karo markaa kabacdi waa lay soo qaaday jeelkaa lay keenay wax yar baan anu jeelka ku jiray dhibaatadaydu waxay u badnayd xaggaasay u badnayd aniyo dadkayguba waxaa jira qori geri noofa xataa waxaa naloo qabsaday qori geri noof oo jabhaddu ay qaaday oo kolkii loo baratamay jabhaddu ay qaaday baa haddana reerkii aan eheliyaddeeda oo dhan aan lahaa baa loo baabi'iyey haddana kulliba qabiil ahaanba intii anu aan la dhashay maaha raaskaygii maaha yani aniga qoys ahaan maaha waa qabiilkii yani aan ka dhashay baa haddana loo sii taargetsaday qorigii baan haddana gadnay iyo reerkii holihiisii lagu galay haddana haddii ilaahay yidhaahday kolkii aan gadnay baa haddana yaa hantidii haddana annagiina lagu sii wada qabtay kulligeena kulli reerkii dhannaa malaha 60 ruux baa iskool la soo qabtay dadkaas wax jeelashan la soo gaarsiiyey wuu yar yahay si baahsan unbaa loogu gumaadayey ma garanaysaaye qabalayada iyo ma garanaysaayey ruuxa u badan baa la soo gaarsiiyey dhagaxbuur dadkaas wax baaba'ay waxaan jecelahay dadka xataa xabaal wadareedkii baan idin tusi karaa haddii aan kaxaysan xabaalihii la geliyey ayaan idin tusi karaa oo halkan iyo ilaa dhan ma garan halkaa inta la aaskay waa 9 ruux aan isku beedgelin marka waxa weeye xaaladanu saas bay ahayd haddii ilaahay jeelka wax yar baan ku jiray anigu waa la iga celceliyey wax badan yacnihii dadkii baa dib la igu celinayey dadkii yani anigina waan dee inaan ilaahay nafta iga qaado un baan doortay oon yani aad iyo aad taasaan u jeclaaday ilaahayna adugu ma una qadarin laakiin had iyo jeer aaleed inaan iska dhifto aad baan yaan doorbigay marka waxaan jecelahay jeelkan intii aan imid dhibka ugu badan ninka ku hayey ummadda
sida nimankaa hore ay ka sheekeeyeen wuxuu ahaa ninkan la yidhaahdo ilkaase nasriga u badan ee maxaabiista waagii dambe dareentayna wuxuu ahaa ninkan la yidhaahdo xasan dheere taasna saasaan ku gaabinayaa marka waxaan jecelahay anigoo fursadan ka faa'iidaysanaya qaybtan saxaafaddu inay tagto sida jeelkan arrintiisu way badan tahay laakiin in la tago qabaliyada noocaasa oo dadka noocaasa xataa waxaan xasuustaa gabadh ciidanku sidan oo kale intuu u soo jeedin laba ilmood oo mataanaha haysta iyadii lagu dhuftay labadii ilmood ee mataanaha iyadii oo meyd ay dul ciyaarayaan ayaan haddii ilaahay iyo xusanayna marka waxaan jecelahay in la gaadho qabaliyada waxaan intaas codsanaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaal weli waxaanu ku sugannahay waa magaalada dhagax buur ee xarunta gobolka jarar waxaanuna weli ku guda jirnaa waa documentary filmigii markaas aanu ka wadnay jeel ogaadeen waqti xaadirkani waxay ag fadhiya 10 hooyooyin oo markaas u dhashay magaalada dhagax buur isla markaasna tacadiyooyin iyo dhibaatooyin fara badan la soo dala dhacay jeel ogaadeen muddo badanna markaas ku jiray balna markaas marxaladihii kala duwanaa